fadlan ha ilaawin inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaaladeedii ugu dambeeyay. Sidoo kale ha ilaawin inaad kambalelka furatid si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo hela muuqaaladeyda. Mahadsanid. Halkan waxaan ku qaadi doonaa wuxuu ku saabsan yahay creating chart of accounts. Chart of accounts inaan sameynaa rabnaa. Markaan rabno inaan chart of accounts sameyno waxaan tagaynaa maintain daaqadaan tagaynaa mar walba mar allaala mar rabno wax walba inaan abuurna daarano maintain aan tagaynaa kadibna waxaa klik siinaynaa chart of accounts. meeshan waxaa noogu qoran account ID, description iyo account type. saddexdan inaa buuxinaa laga rabaa. kan horta waxaa waaye account ID waxaa qoraynaa yani accountkeena numberkaa sii lahayn ID numberkaa sii lahayn. sidoo kale meeshan descriptionna waxaa qoraynaa accountkaas waxaa rabnaa qoran karnaa magac dar leen ama wuxuu ku saabsan yahay ama magaca. account type-kana waxaa loogu talagalay accountkaas ama meesha kusoo qortay oo numberkaas soo siisay type-ku noqon doono. meesha marka ayaa dooranaysid yani waxaa xulanaysid sida kuwaas aa qoranaysid ama ahan. marka meeshan labadan oo calaamada xidigta saaran tahay waa waajib waaye kana option leeda waa ka tagi kartaa ama waa buuxin kartaa. marka account ID markaa siinayno si nidaam ah jiro wax alaala wixii asset ah inta badan waxaa la siiyaa one wax ka bilaabanaya la siiyaa yani one ay ka bilaabdaan wax alaala wixii asset ah. sidoo kale wax alaala wixii liability ayagana labay ka bilaabdaan. wax alaala wixii equity ah saddex ay ka bilaabdaan. wax alaala wixii income-na ayagana revenue ah ayagana waxay ka bilaabdaan afar. kan ugu dambeeyana oo ah expense ayagana inta badan waxay ka bilaabdaan five. marka anaga hadda makusii dhiiranaya laakiin waa bilaabaneynaa yani account ugu horeeya waxaa asset bilaabanayna haddana sida current asset ahaan sida u kala dhow yihiin usii bilaabaneynaa. yani account ugu horeeya waxaa rabaa inaad ka dhigto cash on hand. numberkaa siinayana waxaa waaye kun toban siinaa yani one uu ka bilaabanaya space aa rabaa inuu dhexeeyo. marka meeshan waxay u qortaa cash on hand. typekiisana intaa ka doorana hadda uu yahay typekiisa waxaa waaye cash waa save ida okay kaas waa save close way. kan labaadna waxaa waaye waxaa rabaa inaa sameysto cash at salam banki account inaa sameystaa rabaa yani lambarkiisana waxaa ka dhiganaa kii maadaama aa 1010 ka dhigta kan waxaa ka dhiganaa 1020 cash at salam banki. asal typekiisa waxaa waaye cash waa save ida. kan saddexaad waxaa waaye 1030 cash at dahabshiil bank. asal typekiisa waxaa waaye cash waa save ida. okay hal afar ku darsanaya maadaama cashyada waa badsanaa. account kale oo asna cash ku aruursano maadaama aan Soomaali joogno waxaa ka dhiganaa cash at EVC cash at EVC plus yani anaga muqdisho hadaa joogno Soomaali hadaa joogno inta badan lacagaha qaar waxaa ku aruursanaa waxaa waaye mobilada ku aruursanaa EVC. marka afartaas account waxaa waaye afarta account oo lacagtii ku aruursan doono cashka. horaa usii socdo 1050 waxaa rabaa markaan account receivable inaa sameysto. account receivable type waa bedelaa maadaama kii hadaa oo cash ahay hadda kan typekiisa account receivable bedela typekiisa waxaa waa account receivable waa kana kligiisi then save. waxay igu xigi doonaa iyadana sidoo kale account oo asna asset ka mid ah inventory. typekiisa waa bedelaa asna type waa leeyahay asna typekiisa waxaa waa inventory waaye iraadi waa kana save 1070. hadda waxaa noogu xigi doonaa asna account kale oo asset ah prepaid rent. inta badan kan waa la yaqaanaa accountkan waa lacagaha diimaha lacagaha oo kirada hormarinay lagu qortaa prepaid rent. yani inta kiradaas oo waqtigeeda laga gaarayo waxay noo sii tahay assetkeena kasii mid tahay. marka waa naqaanaa typekiisana waxaa waa other current asset waa marka iraadi other current asset other current asset save. intaas other current asset ay ahayd. sidoo kale hor u socdo
markan waxaan ka dhiganaa bedelanaa fixed asset inaan qortaa rabaa 1100 iga dhig term equipment typekiisana iga bedel waxaa iga dhigtaa fixed asset kasoo korayo save idhah building typekiisasna fixed asset oo ii saxan yahay save idhah intaas waxaa rabaa inaan ugu baxo assetiska akoonada assetiska intaas ugu filan hore oo sii socdo waxaa rabaa inaan galo liability-ga maadaama hadday hore usoo sheegay wax alaala wixii asset waxay ka bilaabanayaan 1 wax alaala wixii liability ayagana waxay ka bilaabanayaan 2 marka liability asna ii samee 2002 iga bilaaw waxaa ugu horeysna waxaa waaye si u kala horeeya current liability waxaa ugu horeeya accounts payable typekiisana waxaa waa accounts payable loo qaadanaya asna kasoo koreeya save idhah sidoo kale waxa meesha hal kale account oo liability asna igu dar 2100 idhah salary payable akoonkan waxaan u talagalnay mushaaraadka marka ka daahino yacni diimaha oo shaqaalaha nagu lahaadaan markii bishii dhammaad mushaarkooda marka la gaaro inta badan waxaan u aqoonsanaynaa anaga deyn inay nagu tahay marka akoonkan loogu talagalay typekiisana iga bedel waxaa ii dhigtaa other current liability other current liability save idhah liability soo baxa sidoo kale capital galaa maadaama asna capital liability iyo labo ka bilaawday capital asna saddex ka bilaabeynaa galada capital typekiisana waxaa waaye equity that's not close saddex shay aa jiro saddex akoon aa jiro meeshan ama saddex type aa jiro account type ah waa inta ku arkaynaa saddex hab waa kana equity that's not close iyo equity is closed iyo equity return earning kan waxaa loogu talagalay equity that's not close yacni capitalka in lagu xiro oo akoonka weyn oo capitalka sida kale capital camal kan labaadna equity is closed waxaa loogu talagalay drawingka waxyaabahaas loogu talagalay kan ugu dambeeya ah equity return earning asna waxaa loogu talagalay return earning type in waxaan saddexdan saddex type waaye mid walbo حتى كان هو waxaa lagu xiraa maadaama kala capital yahay equity doesn't close ku xirina save ila 3100 ثاني يعني كيسمه type kiisana waxa ka dhigana markaan equity return earning save 3200 drawingkiis typekiisna waxa beddelaa waxa ka dhigaa equity is closed okay save equity soo baxa equity soo baxa sidoo kale hore oo socdo income aa galana maadaama income revenue aa galana afar ay ka bilaabana ayadana sales revenue typekiisa iga beddel waxa ay dhigtaa income waxa la wixii oo revenue income waa typekooda save idhah sidoo kale wax kale ku darsanaa ayana oo ah ada income aad iskaga darsanaa 4100 iga dhig ayaan taabka typekiisana income waa income intaas ugu filan waxaa galaa expense kan ugu horeeya waxaa la cost of goods sold kan ugu weyn oo ugu muhiimsan waaye magac kale uu qaataa inta badan cost of sales na way dhahaan dadka typekiisuna bedela waxa ka dhigaa cost of sales okay save idhah 5100 rent expense typekiisa iga bedel waxa ay dhigtaa expense save 5200 purchase expense typekiisna asna expense waa save idhah uu yahay 5300
salary expense isna typekiisa expense uu yahay save ida 5,400 water and electricity expense typekiisana wuxuu yahay expense save ida iyo hal account kale ku darsanaa asna oo ah other expense save ida marka akoonada u talagalay inaan ku shaqeyno waa intaas list inaan fiir markaa rabtid inaad fiirisid awaad inaad rabtid markaa rabtid listi aad click siinee waa kuwana akoonada sameynayna marka inta kasoo muuqanayaan waa kuwana account ID nambaradaasina waa kuwana description waxa qorno magacaasha waa kuwana iyo type mid walba typekiisa yani cash ku xalaal wixii oo lacag la xiriirta cash siinay wixii deymo account receivable oo deymaha naga maqan marka kulligoodna waa kuwana intaana u talagalnay inaa isticmaal intaana akoona rabnaa inaa isticmaalo chart of accounts aan lahaa akoonadan marka cashirkeenan oo saddexaad intaana kusoo gabagabeynaa billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh